السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عن ونكسن صاحب قيمة بدن جنالك كحرن وولالكين وريه معالن إندوس أو مركز السوق نقضي كرال النقضة وضع إن مرمرك قار عن دبلع دعان عشرة دي مرمرك قار برنامج كلنا صار حجلان لكن مرول بوان كذا عذر دارنيا للتأخير دبلع وحرمنا سدا يدي بالقادة on video muuqaal hore aan kugu soo duubay ku balqadabo laba shay baan sii wadno cashiradeen inaan sii wadno iyo cashir kale oo ugu talagalay ilmaha ama dhalinyarada qawaacidka safiinaha ama arkaanta ama salaada haato arkaaniyaadka asaasiga qofka islaamka ah buug oo af Soomaali ah inaan idin soo gudbiyo idila wadaago asoo Soomaali oo Soomaali ahaan aan ku sharxo cashiradeen aan sii wadno waayahay waxaan rabaa marka inaan guda galo oo aan toos u abaaro cashirkeena u dambeeyay qaybtiisa labaad inaan sharxo oo ka hadlo waayahay intii la socotay waa la socotay intii aan la socon janaalka ku cusub fadlan dib u eega videoga cashiradii u dambeysay video isku dhufo kadib liiska waad arki doontaa meesha cashiradii u dambeysay qaybtii hore soo daawo si aad ula qabsatid qaybta dambe waayahay waxaan ka soo hadalnay oo ka soo hadlaynay isku xiriyaasha luqad markii laga hadlaayo ama luqadba qofka uu rabo inuu barto waxa muhiim ah inuu ka bilaabo isku xiriyaasha hadii aadan isku xiriyaasha aqoonin ama qaabka wax la isku xirayo aad fahansaneen way adag tahay in luqadda hadalka ay ku sahlanaato marka si ay hadalka ugu sahlanaato waxaan wada daraasaynayna oo ku wada cishinaynaa inaad fahantaan oo barataan isku xiriyaasha waaya part 2 waa qaybta labaad part 2 waa qaybta labaad unterschied waa farqiga unterschied is vision hadii lagu dhaho farqiga u dhaxeeyo waa unterschied farqiga weil und deshalb waxaan halkan cashirkan ku baran doonaa unterschied waa farqiga يعني كلا دوناشها weil und deshalb إري أهان معنى أهان وإسكو يري دويهين لكن وحير يكو كلا دويهين وحير كيكو كلا دويهين أيان شرحيا مرة بينا صبورتان كله ويا تتكقار صبورتان وكير عبتان وما أرجع ندهان لكن شاشة بايدتينك شاشة الكمبيوتر كإدي سوساريا أيضا قرال وهان كلو إذا حسوسينيا عشرة description كمر والبوان شيئا description ka ayaan soo dhigayaa asigiyo qoraalkiyo kooban ma badaniyo si aad u fahantiin oo cashirka uu kaaga dhaco waxaan rabaa 3-4 tusaale inaan soo qaato afartaas tusaale haddaad fahantid ee ku dhacdo way ka fiican tahay konton cashir ama konton lesson oo aqaatid oo aad fahmin wax yar oo faa'iido leh ayaa ka fiican wax badan oo tiro badan oo aad fahmin oo dhigatid marka isku day tusaalaha yarka ah cashirka aan ku bixinayna isku xiriyaasha ah inaad fahantid qaabka u shaqeynayaan qaybta horena aad soo daawatid hadaad nagu cusub tahay ama cashiradeeda aad ku cusub tahay markii kugu horeysay channelka tahayna fadlan subscribe dheh hadii aad nala joogtayna waa ku mahadsan tahay luqadda hadaad daadisay jarmalkana oo sideenoo kale aadan bilow ahayn fadlan u sii gudbi dadka luqadda ku cusub ama jecel luqadooda inay sii horumariyaan ee rabaan inay bartaan ama aad jeceshahay luqadahaaga inaad horumariso waa in la barto luqaduhu waa sunno aad baad mahadsantiin waa walaalkiin wariye macallin Indoos idile ku soo dhawaada cashirka waatahay aan sii wadano cashirkeeni daawadayaasha qiimaha badan saaxiibada qiimaha badan ku xiran cashiradeeda waxaanu galeynaa cashirka isku xiriyaasha unterschied farqiga u dhaxeeya unterschied waa farqiga weil und deshalb weil waa sababtoo ah waa reason sababtoo ah deshalb sida ogeed ama yani maxaan ku radaa wax consequence am resultigeed ah cawaaqibkeeda waxay ka dhashay inta baa la oran karaa weil sababtoo ah deshalb sida ogeed for the sake of that in English waa la karaa way isku dhow yihiin macna ahaan laakiin farqi baa u dhaxeeya waaya Beispiele tusaale Abdi bleibt zu Hause Abdi wuxuu iska joogay guriga weil sababtoo ah krank ist sababtoo ah uu xanuunsan yahay weil krank ist hadii weil ay timaado xasuusnaada nebensätziga ficilka mar walba dhamaadka ayuu tagayaa Mit weil hat man einen Grund. Markii weil la isticmaalo
qofku sabab ayuu haystaa. Had a man einen Grund. Grund waa reason ama sabab. Warum bleibt zu Hause? Sababta guriga uu u joogay ayuu haystaa. Marka micnaha fahma. Weil waa weil had a man einen Grund. Sabab ayuu haystaa. Warum bleibt zu Hause? Sababta guriga uu joogay maxay tahay? Sababtoo ah krank ist wuu xanuunsan yahay. Waayahay. Mit weil bildet man markii weil la isticmaalayo mid weil markii ay tahay bildet man qofku wuxuu u dhisayaa ama jumlada u sameeynaya einen Nebensatz asoo isticmaalaya. Nebensatz waxay tahay waa soo barana cashiradii ku noqo fadlan haddii cashirkan hadda kugu horeyso. Nebensatz maxay tahay verbka ama ficilka mar walba steht am Ende dhamaadka ayuu joogaa sida hadda idin sheegaba. Ficilkan waa maxay? Tusaale ahaan verb sein ist meesha ugu dambaysa jumlada ayuu tagayaa. Marka mit weil markii weil la isticmaalayo bildet man qofku ama shakhsigu manka kininka ma aha kala garta kan ninka waa double n amtana way weyn tahay laakiin markii man kan caadiga waa shakhsi camal laga wadaa. Mit weil bildet man markii weil la isticmaalayo qofku wuxuu u dhisayaa einen Nebensatz jumlada Nebensatz u dhisayaa das verb ficilkana steht wuxuu oolayaa ama uu yaala am Ende dhamaadka. Waayahay. Fatima is krank. Fatima way xanuunsan tahay. Punkt. Kii horeete Abdi bleibt zu Hause comma ku jirtay. Markii comma aragtid oo isku xiraha u yimaado ficilka am Ende ayuu tagayaa. Laakiin markii oo punkt ay timaado isku xirahana laga bilaabo ficilku waa inuu positionka labaad imaadaa sida hadda ka muuqataba. Fatima is krank. Fatima way xanuunsan tahay. Deshalb sida awgeed bleibt waa ficilka soo ma dhamaadka lama geenayo markaan. Deshalb yaa lagu xijinayna waxaa laga rabaa positionka labaad inuu joogo. Deshalb sida awgeed ama for the sake of that arrinka awgiis ama cawaaqibkaas awgeed bleibt sie zu Hause guriga ayay iska joogtay. sidaas awgeed guriga ayay iska joogtay. Mit deshalb isku xiraha had man einen Folge qofku wuxuu yani uu haystaa ama qofku wuxuu leeyahay Folge waa consequence cawaaqib am result. markii deshalb ay tahay qofku wuxuu haystaa ama waxa ka dhalanaya waxay tahay cawaaqib am result natiijada ka dhalanayso waay. Fatima marka maadaama xanuunsatay maxaa ka dhashay natiijada ama consequence ama cawaaqib ka dhaltay maxay noqotay inay guriga iska joogto. Kii hore laakiin muxuu ahaa grund sabab reason uu ahaa. marka saas ku kala duwan yihiin cawaaqib wax ka dhashay ama natiijo wax ka dhalatay iyo sababta wixii sababay. marka saa u kala gartaa. Mit deshalb had man einen Folge waa consequence ama cawaaqib ama result natiijada waay. waayahay. Mit deshalb bildet man deshalb marka la isticmaalayo isku xiraha ahana bildet man qofka wuxuu u dhisayaa ama u sameynayaa einen Hauptsatz jumlada Hauptsatz la yiraahdo. waxa Hauptsatz la yiraahdo haddii aad rabtid inaad baratid fadlan cashirka hore ku noqo. Das Verb steht in Position 2. marka Hauptsatz ay timaado Hauptsatz haddaa aragtidba positionka labaad ayuu ficilka imaanayaa. taasna xasuusanaada oo dhamaadka ma tagay. Hauptsatzga mar walba yani wuxuu imaanayaa positionka labaad markii deshalb lahu asaa ku xigo macnaha ficilka ku xigo oo dhamaadka ma tagay. waayahay. intaas marka uu gudbo ereyo kale oo isku xiryaalo lemcinaana way jiraan. waan soo qaadan doonaa hal ama labo. Hassan get oft ins Kino. Hassan mar walba shaneemadu aadaa. Weil sababtoo ah oft waa had jeer often meesha Englishka ka dhaan waa. Kinona ins Kinona waa shaneemada. Weil sababtoo ah film mag wuxuu jecel yahay filmka. Hassan mag filme. Hassan wuxuu jecel yahay filmka punkt. kii hor kama ku jiray kan punkt waa. Deshalb mar haday timaado punkt haday timaado oo deshalb oo ka bilaabno Hauptsatzga ficilka waxaan keenaynaa verbka waxaan keenaynaa position 5 sida hore ku sheegaba. Get often ins Kino. Hadii jeer shaneemadu aadaa. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. maalintii oo dhan waan shaqeeyay. Darum that's why waa ergiyo kale lamta sababta lamtahay bin ich müde. taasna waa sababta aan u daalanahay. Darum bin ich müde. müde waa daal. taasna
وسببت أنا وهاي بين وأهانشها وفيرب زين وسوق قادتين عشرين هوري كجرا تعسستان بينش مودي تاسنو وسببت أنا ودالن هاي وقتها waxaan rajaynayaa inaad fahanteen cashirka description-ka qoraalkan iyadoo oo hoos commentiga description-ka hoose soo qoraal ah ayaa ka dhigi kartaa ama ka koobiyeysan kartaan intaas ayaan kusoo gunaanudaya inta waqti kale ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh